gabadhaadaas adaan kula hadlayaa shahaadadaada hadhow waa ka tegaysa ma ogid 15 sano aad wadid guurkiina aad diiday inaad guursatid hooyana ay rabto iyadoo nool inaad guursatid nin wanaagsan ahlu diin akhlaaq leh inay ku keento oo ay aragto ubadka aad dhashid oo ay waliba kula koriso kugu caawisay hooyada rabtaa gabadhaada isoo eegaysa soo ma ogid adiguna ma rabtid waxaad leedahay ilaa PhD aan qaato waa imise sanad ku qaadanaysaa adiga gabadhaadaas kale sidoo kale goormeed qaadanaysaa shahaado PhD waxaad qaadanaysaa 35 sano wixii xagga ka xiga ilaahay baan kugu dhaariyay gabadha 35 sano gaadhay markaas haday shahaadadii qaadato PhD ga ahay isla maalinka xiga shaqada ma helaysaa PhD shaqo lagu ma helayso ma ogidin wallahi lagu ma hel sababtoo ah shaqooyinkan meesha aad shaqada ka rabtid kambaniyadan dadka aasaasay kulli beeraley waay waratay iska ahaayeen ilaahay baa lacag siiyay laablaaba lagu helay u fiirso sharikaadkoo dhan wax shahaado wato waa yar yahay dugsi sar hadee xataa hadee jaamacadda 4 sano dhameeyeenaba nasiib ahba soo adoo PhD wato kuma shaqaaleynayaan waa wad ka cilmi badan tahay meesha wad kala wareegaysaaba tada kale lacag yar ma doonaysid inaad ku shaqaysid la soco dad wallahi soo qaatay shahaadada oo la leeyahay war hadda jaamacaday tageen jaamacada diini ah war jaamacada lacag ma hayna volunteer wax ku barnaaye majaanan bilaash wax ma ku baraysaa la leeyahay hadhow hala gaaro markuu wax la hela laakiin aan isla kicina jaamacadiyo aan ma aragtaaye ya hadda waxba lama hayo markaas wuxuu leeyahay ma lacag la'aan baa wax ku soo bartay aniga wuxuu rabaa lacagii 10 sano ya ee deemihii loo qaaday waalid inuu gudur rabaa xaguu ka helayaa waa maya soo gabadhii inay wax raadisaa dhowr sano ku qaadan markay shaqadii hesho ma inay guursatay rabtaa maya waa inay dhididaa oo ay dhafartaa oo ay lacag ururis bilowda ilaa 40 sano gaarsii gabadhii 40 sano jirtaa gabar 40 sano jirtaa oo haddana wadata shahaadadan PhD ga la yiraahdo kan guursanaya waa kii sababtoo ah gabadhan baariyad raaliyad noqon mayso ka guursanaya waa wadaad masaajidka quraanka iska soo barto xerow ah waaye ma ogolaanaysaa marka hore waa maya ma ogolaanayso مرت صوبته هو إسكا شهادة معها ديني لسع ومادي كلما عاد وحسي برتد واتسي كبريسا حلو كبر بوكسي قلاي بيجري مالك قادتد دتك كر آيات كسو إيجيسا دتك كان دت دور كيم ذا وحبا قانون الجهلاء وأنت بدن لك يا أنت بدن دت كان نو إنك كهو سيانة مليسا سو قبلنا محيرتا جور كده إذا أفرتن جرا أيوه وحي أشر دنيسا أيضا كونديشن إيه شروط وضع طبع نافرت السنة جرتا وحبك وجمع هريني يا رالي هذا يا رالي هذا يا هذا أفرتن جرا هي وقت جنا وكاتة يا قف هي مكودنا يا هل إلا أنت كاهرت مكاس صارا يا وضبا أنت هاي هنا كل جواد غلقشة كل جواد كسر بعدها قبلا أنت نقول هاي كل جا يا وهل بضبا أنت هاي قف يا هاي يا ميليسا أوكي هذا جورستو قبل بيجي وضتا أضيع كهوسية حدو أمر ميليسا إلى يوم كودارية إك حبيبكم حولي رقم الكولاد صلوات الله والسلام عليه ألا أنبئكم أما ألا أخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة ما يدين شجع رقيه وحاد هنتان أو أد أديدان أو أد أشقيستان ما يدين شجع وح أقيمي بدن ما يدين شجع waxaad u ordaan noloshiina waxa u qaalisan rag iyo ma idin sheegaa hada leeyri al mar'atu salihah ayuu ama zawjatu salihah lama dhihin al mar'a waa gabdhaha lama dhihin gabdhuhu ma wada ah waxa ugu qaalisan gabdhuhu se ma wada qaalisana ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegaya tayyibaat iyo khabiithaat samaha
ها لكن waxa qaalisan waa kuwana waa tayibaadka wuxuu leeyahay waa gabadha saalixada gabadha wadata shahaadada la yiraahdo saalixa shahaadada saalixadana way ka sareysaa PhD markaan xagga idinka celinay PhD maadi iyo cilmi gaala markaad baranaysaan waxaan idin wadaa shahaadadan kale inaad barataan uurkiinu ay ku weynaato shahaadada la yiraahdo saalixa gabar jaamacad ka soo baxdo saalixa lagu soo tababaray ma aragtan idinka abadan waa kana saalixada wuu si fasira wuxuu leeyahay haddii uu eego ninkeeda hadduu gabadha saalixada way guursanaysaa horta saalixada bal waxay ku guursanaysaa 18 ayay ku guursanaysaa gabadha saalixada haddii ugu badnaato ay dahdo 20 sano gabadha ku guursanaysaa markay saalixa waay suluxeeda ayaaba tusaya inay guursato ku qalqaalinayo markay guursato ninkeedu hadduu eego gabadha saalixada uu ku farxa way farxad gelisaa idaa nadara ilayha sarrathu way farxad gelisaa way farxad gelisaa wuxuu ku farxaaya waa maxay ninka Ilaahay baan ku dhaariyay